waxa maalmahan idaacadaha lagu celcelinayaa oo laga sheegayay inay yiraahdeen 18 May ma xusayno afartaynana madaxtooyada joogay waxaanay sabab uga dhigeen abaaraawgeed abaarihii maxaa inoo muuqda ee aynu arkaynaa waxaynu arkaynaa ilaa maalintii abaartu bilaabantay ilaa maanta waxay dawladdu qabatay iyo waxay u gurbatay iyo xil ay iska saartay ummadda uga warrami mayno wataa aad daawanaysaan habeen walba waxa tiifiyada ka baxaya iyo sidaana cidina ugu tegin ciddii u gurmatay xisbiga waddani oo uu hogaaminayay hogaamiyihii xisbiga xirsi cali xaaji xasan wixii ku dhacay waa ogeydeen waxaynu maraynaa oo ina haysata xukuumad tidhi dadka iyagu ha dhintaan cudur ha u dhintaan gaajo ha u dhintaan dadkoogu hadday u gurmadaanna yeeli mayno ciidan baanu amar siinayno horeynaa u diida cuntada iyo dawada waxay tidhi maanta waxaa la daynayaa dabaaldegii 18 May 18 May siyaabo fara badan baa loo dabaaldegayaa waa qarannimadeennii waa inaynu muujinno inaanu qarannimadeennii aanaynu ka bixin waa halkii xildhibaankee waa qodob dastuuriya maaha midaan inaku iska samaysanay dawladdu maanta ha noo caddayso ma waxaa la waayey 2,000 ma waxaa la waayey 4,000 war 5 milyan aad miiska noo saarteen xaggeed geysan war 5 milyan kale ay DP World keentay xaggeed geysan war 160kii ay isku tagga Imaaraadku ay bixiyeen xaggeed geysan ma maanta doonaysan in qarannimadayada dumisaan waa taad ku socoteen waa taad ku ballanteen waa taanana anakuna idinka aqbalayn Somaliland way taagnaanaysaa haddaad idinku ku soo gasheen ballan oo aad ballan ku soo gasheen inaad dadka nacsiisaan ma nacsiinaysaan Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato